garayaa barnaamijkeena daawadayaal soo dhawaada waxaana isdul taagi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia marka hore iyo khilaafka soo kala dhaxgalay sida loo kala safan yahay iyo cidda kala wadata labada group ee ay kala hogaaminayaan Xasan Taadi iyo waliba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida bal marka hore waxaan ku horeynayaa saaxiibkay bidhaan soo dhawow aad baa u dhowahay horta khilaaf xoogan baa mataqaanaa soo baxayo kaasi oo ku aadan in dawladda federaalka Ethiopia inay u baahatay Mustafa Maxamed Cumar kadib markii uu maskax aad loola yaabay u adeegsaday ciidamada Liibiya booliska kala dirkoodii waayo ciidamada Liibiya booliska kala dirkooda gobolada kale aad bay u rafaadeen laakiin ninkan maskax degan iyo aqli uu la imaaday iyo mataqaanaa si fiican arinta mataqaanaa ku xaliyay maskaxdaas ahaa inuu ciidamada yiri wax wali ka dhigay ma lahan magaciinan baa la bedelay inta kale laakiin sideed yahay saaun jagadi wuxuu ninka si u haysanaya tartiib ba saa la yariyo markii dambe baashi way socon weydo waxa artay waa ka dhacay marka abi wuxuu yiri marka ninkan waa nin aad u maskax badan marka waa in maskaxiisa freshka in laga faa'iideysta federaalka mataqaanaa laga faa'iideeyaa see laga faa'iidin marka federaalka shaqooyin badan baa mataqaanaa ka banaan oo xisbiga mataqaanaa BB mataqaanaa kamid oo ay doonayaan inay ku kubciyaan maadaama xisbi mataqaanaa gunaha oo soo arrimin jiray Ethiopia meesha laga saaray waa in la helaa marka maskax fresh ah oo xisbiga mataqaanaa taaba gelisa marka Mustafa marka federaalka hadii looga baahday waxa la yiri meeshii markii loo dhiibi meesha marka Mustafa wuxuu rabaa marka qof isaga uu ku maamuli karo in mataqaanaa uu keensado oo kusimo mataqaanaa u sii noqonayo sida Xuseen Qaasim hadii mataqaanaa ka socon waayo inay hore haduu ka socon waayo Tayyib oo asla mataqaanaa hadda hogaanka nabadgelyada intaas يو وتا مركا سد حدث أوبشن با ووتا إنتنا مثلا وها هوس كريحية أبي أحمد ونما كمان مثلا متكمدة سوق قادم دونا قرب كلا كسو قرب بحي واسم مثلا آدم فرح لصفن يو كنك لقوا مجعبان إلى هذا تادي حسن تادي يا وطو لكن ده إجانا هوستجيان آدم يهوستجيان آدم يو رجل زارك حينك يهوستجيان مركا نيمان كان مركا هرتني كان حسن تاديجا ووزير كم محوها بيهوي أسوي حوته مركب الحين حيجانك يوتا أو هنينا مثلا قولك سيتي كسوجي وإبراهيم عثمان هدي كسعون واي إنا فاتح يوتا هدو كسعون واي محمد عمر مدى حزبية ياسن يوتا مركن نيمان كان حسن تادي وين هاي وحيولي هاي وحوتان أجاسمياشي وزير ذي كلي وحدان مارياشي وحنا بيوتا أنت دور دوق بنيل سلسلة داير بمتانا يا أوتحن مركن خلاف كهالكاس يوم مثلا كتاجني هاي لما إنك نقول سنة أنا كل لما قرن دونه لكن وحب بدن تاي مر والبابا دي مدحوينها ماشي جوجو عد قوته إن مثلا سي جوي دونت من ده كدرسه ماشي اللي يرادو سوماليلاند وحقيقة جدال كريه حجيني أي ربان إن مثلا ماشي الله كانوا إبراهيم عثمان بيحلو حجينك ما دام أي دنا بدن وجبهين دوردانك سوماليدا لكن سردانك إثيوبيا أرنتا كور هلي يا مركي مثلا أرنتا إيده يدي ده كور ماضي أو يري وحفر قلنا أو الوصل مكر دوردانك إنه خيرت إيه مجرته واقرته أديات بعض ما هتصنت مركم لقى يابا أرنتاني إن ما قرنا يساي مدحوين مصطفى ودي ما أفتكر كارك ويدارته أو قف كان كله وبدل ما لقى يابا ها ودي كرتا because دي أرنتا مثلا يسوي شعب هذا السجن ولولن وقليو أو هذا مثلا قف بدل ورثرية دي واحدة جرى كتا مكان السجن لو بلنقاد وين أو مثلا آد قدامه من كذا مثلا جعنته وكهيو دور ديانك هذا الوحور هذين وحاول وقف السجن بدل لا شقي هذا ولي حسين قاسم بأد وكرسونيه واحد سجن لا شقيه يدونيا لكن حسين وحكس عون كرين محوها نكل يرادو أبي وحولي حقنا كنين يرمى معنقة أو محوها سياسة سأل وقلبسن ويه لكن لبضن كله إنه هرية طيب حولي نمو وحلا قبسن كرو وواحد سلا مرسن كره مثلا يبدين أديات بدو ما هسنت هيدا وضيال ديجان كا aan idhaahday oromada waxa la dubiyay 19 masaajid danka kalena waxa ayadana deegaankaasi buuxdaafiyay banaanbaxyaasha ay sameynayaan dadka muslimiinta ee ku nool deegaankaasi maxaa ugu dambeeyay ee shido aad iyo aad baad maasantahay fargodow taasi hay dambayso wax yar baan inaan ku darsado arintii siyaasadan aad ka wacakarin ay ka taagan dowladda deegaanka Soomaalida iyo guddiga fulinta kala jabay ee loo daabulayo dhanka Addis Ababa horta Addis Ababa waa meel caqabad deegaanka Soomaalida ku ah oo mar kasta oo khilaaf yimaado tii ragan laga xayo
qolo lagu xidho wax doono laga sameynayo hase yeeshee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaad moodaa in uu nin taariikh dhigi doono yahay oo dowlad deegaanka soomaalida uu taariikh ka dhigi doono maadaama uu haddii culays ku yimaado uu asagu rabo inuu shakhsi uu deegaanka ku aamini karo inuu geeyo hase yeeshee xoogagan kaleeto oo meelo badan dabada ku haysta ayaad moodaa inay ayaguna qudhigoodu ayna yaraysanaynin maadaama ay xoogagani ay yihiin xoogag ayagu interest keli u wada laakiin ayna ahayn jacayl iyo deegaan matalaad ayna ku socon waa kooxdan uu ninkan madaxweyne ku-xigeenka uu wato madaxweyne ku-xigeenku sida loo dogsoon yahay nin ma aha siyaasi ah nin siyaasad soo yaqaana ma ahayn waa nin waqtigii ay Mustafa iyo ninkii la dhihi jiray Aadan Faarax iyo Axmed Shide ay isku dhaceen khilaafka weyn uu taagnaa ee Aadan Faarax meesha laga caydiyay ee Axmed Shide iyo Mustafa ay fooda isla galeen ee xaaladda siyaasaddu ay cirka gashay ee ila meeraysa ay noqotay ayagu ay keensadeen hase yeeshee hadda ninkan madaxweyne ku-xigeenka nin deegaanka intuu asagu madaxweyne ka noqdo matali kale siyaasadda deegaanka jahan kale taariikhda deegaanka wax ka yaqaana deegaanka guud ahaan gobolada 11 gobol ee dowlad deegaanka Soomaaliya hal gobol oo kamid ah warigii intuu booqday muna dhinsay hatta deegaanka laga soo asaga uu matalahaan uu matalo gobolka City muu yaqaan dir dhaba kale uu ka yaqaan magaalo uu gobolkaas soo dhananta marka ninkani ma aha nin hadda deegaanka jahayn kara ma waa loo baahan yahay waa in shacabka iyo bulshada iyo siyaasiyiinta iyo aqoonyahanku ay si weyn u qaadacaan waa in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya garab la siiyo inkastoo kuwan hadda garab ku wataba ayna kuwa fiican ahayn oo kuwa khayr qaba ahayn wax ay ku dhaamaan ay jirin oo hadda ay soo kordhinayaan waan ogsoonahay raggan oo hadda Mustafa Cumar uu garab ka saarayo sida inuu hurri iyo waan ognahay inuu hurri qorraxay buu xal u waay بريديك أنا كنت أقول سو حلو قالوا وقتها نيك أنا هو أثناء حسين قاسم أثناء ورونه مدحتويد يذكر أنا هو ذا كوحنا مركا حالات الديك سؤال من عاوك لكن مصطفى محمد بن كورسوينا إنه قولي سمعنا رجينا يا نبو aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal barnaamijkeena ayaan ku dhex jirnay haddaad ku socoto bal dhanka iyo oromada banaanbaxyaashan iyo masaajida danaha laga leeyahay maxay tahay dab gobolka oromiya caqabad aad u weyn ba ka taagan maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka jiray masaajid burburin dhawaan golaha islaamku waxay soo saareen gobolka oromiya inay joojiyaan masaajidiinta ayadoo waayid u dambeysay masaajidada dunida dadka muslimiinta la barakicinay labada qoomiyada oromada ayaa laba kala jaban hadda kooxda kristanka iyo kooxda muslimiinta ee fooda isla galay kooxda kristanka waa ka soo baxeen axmaarada orthodoxy ka soo baxeen gobolka oromiya oo soo wareegeen waxay gobolka oromiya dad islaam ah oo badan islaamka la rabaa in la burburiyo goobihii islaamka masaajid in kaniisada laga dhiso waa sheeko cusub waa maanta waxay marayaan masaajidka 19aad baldibi waa jamcihi dibad baxyada meel kasta isqabsaday booliskii dadkii dibad baxyada fooda isla galeen halka khasaariye dhimasho badan baa ka dhashay wali dibad baxyada way sii socdaan xaaladda gobolka oromiya waa mid aad iyo aad u cakiran midaana waxa ka dambeysay dawladda Itoobiya uu hogaaminayay Abiy Ahmed iyo kooxan orthodoxka oromada isla socda ayaa waxay rabaan gobolka oromiya inay ka dhigaan gobol kristana gobol aan islaam ahayn dadka kristanka Itoobiya laga maamulo kaniisada waa weyn oo caalami ah oo adduun gaalada waa weyn baadiriid adduunka soo boqdaan in laga dhisay rabaan marka waa in masaajidii muslimiinta meesha laga saaro marka burburin baa socota cagafta maalin kasta waxa la masaajidkaas totally laba furay xaalad aad u cakiran islaam iyo gaal loo kala bixi doono ayaa gobolka oromiya ka socota dibad baxayna deegaano hore la ku fideen dhimashooyin badan xabsiga dad aad u tira badan muslimiin xabsi loo dhacay waxaa la rasuulay Itoobiya arrintaas ka waanto dadka oromadu waa inay gacan qabsadaan waa dad muslimiin oromadu waa inay diintooda difaacaan ma leena aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal